kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qormo aan halkuli kaga dhigay hanaanka waxbarasho ee dalka iyo halganka ardayda Soomaaliyeed waxa idin diyaariyay halkaan idinkala socodsiin doona anigoo ah Nuur Shariif Shaacir dalka Soomaaliya waxa uu lahaa hanaan waxbarasho oo abaabulan barayaal tayeysan iyo cilmi baarayaal waxaana aad u korayay cilmiga bulshada ka hor sanadkii 1991 oo ahayd goortii uu bilowday burburkii Soomaaliya dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxa ay uryaamiyeen haykalkii waxbarasho ee dalka waxayna dhaliyeen deganaan la'aan sababtay inay kala fogaadaan adeegayaashii waxbarashada iyo ardaydii markii la soo gaaray sanadkii 1994 dugsiyada waxbarashada dalka ayaa gaaray lambarkii ugu hooseeyay abid taa oo ka dhalatay burbur ku yimid inta badan dugsiyada haddaysan ba ahayn dhammaan qalab la'aan iyo macallimiintii ardayda oo ka sii fogaanaya hanaanka waxbarasho marka nabadgelyada iyo xasiloonidu ay ku soo korodhay dalka waxa la dareemay korukac u dhigma xaddiga ku biiridda dugsiyada waxbarashada laga bilaabo sanadkii 1996 kooxaha bulshada rayidka hay'adaha dawliga ah iyo aqoon-yahanay abaabulay ayaa bilaabay inay uriyaan tilaabooyin isdaba joog ah oo ay u qaadayeen dhanka tacliinta sare iyagoo ka jawaabaya tirada sii kordhaysa ee ardayda ka qalijabinaysa dugsiyada sare ee daneynaya inay sii wataan waxbarashadooda isla markaana kaalmo ka helayay eheladooda ganacsatada midowga Yurub EU dawladaha Carabta ururada aan dawliga ahayn ee Islaamka iyo kuwa reer galbeedka qurbajoogta Soomaaliyeed ayaa iyaguna dadaalkan wax ku biiriyay oo dhisay jaamacado si ay gacan uga geystaan tacliinta sare ee wadankooda Soomaaliya jaamacadaha dalka ku yaala waxa kamid ah jaamacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho oo 10 kor u dhaafaya jaamacadda Kismaayo jaamacadda Bariga Afrika jaamacadda dawlad goboleedka Puntland jaamacadda Mudug University ee Galmudug jaamacadda Simad Cadaado jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Hargeysa kobaca dhaqsiyaha badan ee jaamacadaha wuxuu jawaab cad u yahay baahida ardayda soo dhameysatay dugsiyada sare ay u qabaan tababar sare oo dheeri ah waxaana aad u dhib badan in ardayda Soomaaliyeed ay helaan deeqo waxbarasho oo dibadda ah waxaana muhiim ah in la xasuusto inay tacliintu tirtirto saboolnimada iyo jahliga ayna shakhsiyaadka barto inay isku filnaansho gaaraan iyo inay noqdaan kuwa ka qayb qaata wax soo saarka iyo horumarka dalkooda waxa aad muhiim u ah in la dhiirigeliyo ardayda ku hoolan waxbarashada tacliinta sare si dalka loogu soo saaro tiro aqoon-yahano ah kuwa oo ku filan in dalku mar kale cagihiisa isku taago iyo inay wareejiyaan cajalada dhaqaale ee dalka si loo higsado horumar iyo barwaaqo taasina waxay dalka dhaxal siin doontaa inuu abuurmo xayndaab